gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe soo dhaweyn iyo salaan kadib ayaa waxa ay mas'uuliyiinta bahda saxaafadda kula hadleen hoolka nasashada garoonka magaalada Kismaayo waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo soo dhaweeyay wafdiga waxaa sharaf weyn loo amaantay ziyaaradiisu ay ku badan Kismaayo qalbiga markale laakiin socodka ay ku yartahay inuu maanta lagu soo magaalada Kismaayo isagoo shirka waa tashiga way ka mid ahayd qorshihiisii hore inuu yimaado ka hor shirka ka hor laakiin waxaa arrin farsamo daraadeed oo salaada way marin laakiin anaad u faraxsanahay gudoomiye Jawaari soo dhaweyno gudoomiye soo dhawo anaka meelkaaga aad baan u faraxsanahay maanta soo dhaweynta waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ragga kale kaga dambeeyaan ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo markii ugu horeysay Kismaayo soo gaaray tan iyo intii loo magacaabay xilka gudoomiyenimada baarlamaanka Soomaaliya waxaana uu sheegay in maatinka uu magaalada Kismaayo soo gaaray uu ku qatomo ka qaybgalka shirka madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya waxaana hadaladiisa ka mid ahaa sida uu noo sheegay hadda gobol Axmed qalbiga Kismaayo waa joogay marna kama maqnay marna ma moogay waa maxad ilaahay maanta waa joognaa waa soo noqonaynaa waxaan aad Allah subhanahu wa ta'ala u sheegayaa in aan tawfiiq aan ku soo baxo Kismaayo oo loogu magac daro waankii jihaynta siyaasadda Soomaaliyeed lagu jihiyay Kismaayo loogu magac daro yaa qalbi weyn insha Allah maxad gaar ah dhammaan waa jihaynta Soomaaliyeed oo ku nool gobolkan wanaagga iyo maamulka iyo amniga sida aad u sugteen waa wanaag aad u sugteen Soomaaliya oo dhan keligiimaha waa arrin Soomaaliya oo dhan ku sugteen waa ku madad si kastaba ha ahaatee shirka madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya oo maanta lagu waday inuu ka furmo magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa muuqanayso in uu dib u dhac ku yimid iyadoona wali aysan bahda saxaafadda la hadlin mas'uuliyiinta Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan in uu baaqday shirkaasi Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo.